maanta xiisada marinka Hormuz waxa ay maraysaa meel aad u adag. ciidamada Mareykanku waxa ay u soo gudbeen gacanka Persia iyagoo isku dayaya in ay tallaabo ka qaadaan ciidamada maraakiibta hortaagan ee dawladda Iran. suuragal ay noqon kartaa daqiiqad walba halkaasi dagaal inuu ka dhaco oo dhinacyadani ay iswajahaan. halka ciidamada Mareykanku ay beeniyeen wararkii soo baxay ee tilmaamaya in la weeraray markab dawladda Mareykanku ay leedahay oo isku dayay in uu soo galo gacankaasi. muxuu yahay taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka warka ay goordhow sii daayeen ee ka dhanka ah dawladda Iran. dhinaca kale waxaan eegi doonaa wararka sheegaya in ciidamo iyo waliba diyaarado aad u xoogan meel ku dhow gacanka Hormuz ay keentay dawladda Iran, taasoo saacadihii la soo dhaafay qaar ka mid ah warbaahintu ay baahinayeen. ma dhab warkaasi mise waa dhalanteed?